sidee ku bartaa luqadda Ingiriiska waa su'aasha ugu badan ee la soo weydiiyo. Halkani waxaan kugula wadaagi doonaa 4 shay ee aad ku baran kartid luqadda Ingiriiska. Tan afaraad aad ay muhiim u tahay ee nala joog. kow haddaad doonaysid ama xiiseynaysid in aad baratid luqadda Ingiriiska waxaa maskaxdaada ka saartaa wax la dhaho natiijo degdeg ah. adiga kula hadlaya wax natiijo degdeg ah la dhaho ma jiraan adduunkan. wax walbo aad sameyn rabtid inaad ka mira dhalisid daarabtid waa in waqti badan ka gala. natiijo degdeg ah ma jirto. tan labaad wax la dhaho xishood ama in aad ka cabsatid in qalad aad geysatid ma jiraan. qalad qasab waaye in aad gashid si aad wixii saxda u baratid. tan saddexaad in aad isku daydid inaad ku hadashid luqadda wax macnaheedu ma soo ziyaadinayso hadda kun eray oo Ingiriiska ah xifdsan tahay macnahooda oo aadan ku hadlaynin. afaraad ayaa waxay tahay in luqadda si aad u baratid waqti ay gelisid aflaanta luqadda aad xiiseynaysid. hadda waxaa bartaa inaad baratid English waxaa laga rabaa in aad waqti gelisid filimaanta ama aflaanta Ingiriiska ama dokumentariyadooda in aad daabatid. waxay ka saacidaysaa dhawaaqa erayaasha oo hadhooti ku fududeynayso in aad eraygii si fiican aad ugu dhawaaqi kartid. haddaba haddii aad xiiseynaysid inaad baratid luqadda Ingiriiska qaab fudud oo online adigoo gurigaaga joogo nagala soo xiriir shaashada profile-ka saaran. bisha cusub waxaa qabanaynaa fasalo cusub oo Ingiriiska caruur iyo dad waaweynba.